هاي فينابو هاي هبارني كما هرن غيركي أني غوريو maxaa leedahay aniga la farxay adeer hal markaliya cod iibu بيرتي قدا hal markaliya عاشا وجود kooka hayeen xakaamada uga cabsanaysaa niyo iska qoslay galab wanaagsan asxaabay meel kasta joogtaan iyo meel kasta iga daawanaysaan halka igala socotaan waa janaalka Cabdulle Falowgis fadlan hadda janaalka cusub tahay saar leeg iyo subscribe iyo comment dhammaanba muuqaalka waa ka bixi waxaan soo wadaa muuqaal aad iyo aad u qurux badan waxaan joogaa waddanka Uganda gobol ka mid ah gobolka loo xalaa Imbaali inta badan waxay yiraahdaa ardayda Soomaalida wax ka barta muuqaal qurux badan baa idinka samayn doonaa ila asxaab badan baa ila fadhiya maxaa leedihiin asxaabta ayaan mid insha Allah mikrofoonka ugu dhaweyn doonaa ila socda asxaab Imbaali waxay ka mid tahay gobol ka mid ah waddanka Uganda waana gobol aad u baaxad weyn inta badan dhalinyarada Soomaaliyeed ay u soo aado waxbarashada halkan waxaa ka mid ah beerad ay leedahay Soomaalidu waxa isku timaada dhalinyarada wax ka barata gobolka Imbaali jaamacadaha iyo macaahidda kala duwan iyo sidoo kale kuwa deegaanka ah oo degan gobolkan halkan ayaa la fariistaa galabtii asxaab badan ayaa isku timaada hadba inta firaaqa ama waqti heli kadha halkan waa meherad kale oo la yiraahdo Olympic waxay ka mid tahay meheradaha waaweyn ee la isugu yimaado ee Soomaalidu leedahay ee ku yaala gobolkan Imbaali Olympic waxay isugu jiraa qayb meherada iyo qayb shidaal oo ay shidaal ka qaataan taraagyada Soomaali badan ayaa halkan u timaada ama gobolkan waxbarasho sidoo kale qayb ayaa u timaada deganaansho halka inta kale ay u timaado dhoofka ay u aadayaan wadamada Yurub iyo sidoo kale Ameerika iyo Canada inta badan se dhalinyarada waxbarata ayaa gobolkan u badan Saleban wuxuu ka mid yahay dhalinyaradii gobolkan wax ka baratay muddo badan joogay inkastoo hadda uu ka furtay meherad ganacsi oo ay ku xiran yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والسلام يا دمان أصحابتا عبد الله هذه بني سلام يا دمانتين يوم الصوماليات مركز التركان بقى وعن شغل مقالة إمبالي تلقى يوغندا قبل كان وعن كوي هاي وحبر الشضا بني يرد الصومالية دي يوغندا شفتوا حالنا هاي والكم في إمبالي وركالة إمبالي مادا وحبرتا قبل كان وقبل قروح بدن عقارا أمانة أو أمان في عين هاي marka waxaan leenahay welcome to Imbaali especially welcome to Somali restaurant in Imbaali aad iyo aad baan salaamaya dhamaantiin assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh raggu aad iyo aad ba kaamirada looga baqayo waa laga cabsadaa kooka hayeen kaamirada uga cabsanaysaa niyo iska qoslay ku dhubaraya ayaa hay Saciid خير والبعث asxaabtu maxaa leedahay dadka Soomaaliya meel kasta ay joogaan maxaa leedahay niyo عودوا على والله ما يكسب Ramadan mubaarak نقلتي ka qalin ma yiraahdo macaan يا كلك عصيصة suuqaadka maxaa ka haray suuqaadka أفر بكاري ninkaan soo qabanaya inaad iri war maxaa leedahay Imbaali codka waliba aad buu hooseeyay Kampala ka soo safadhay Imbaali baa timid ka war gobol waxaan joognaa meesha la yiraahdo Imbaali sida la socotaan waa gobol ka mid ah Uganda wuxuu caan ku yahay inay ardayda Soomaaliyeed ka bartaan badan waxbarashada u soo aadaan ama jaamacad ha noqoto ama waxyaabo kale oo luqadda ha noqoto sidoo kale waxaa fursad u leeyahay in laga ganacsado galabta waxaan halkan ku koonay dhalinyaro badan ka mid ah dhalinyarada wax ka barta gudaha magaalada waxaanu ku qaadanaynaa waqti yar oo afurka waxaan ku sugeynaa waxaan noo yimid ninkan oo Cabdulle Janaal Vlog كنت من dhalinyaro oo ka mid ah ardayda wax ka barata meesha kana shaqeysa mudana joogto ku sugnaa fursad lagu helay marka isagana waxaan leenahay asxaabta ku xiran iyo intaan ku xirnay in loo soo kala kiciyo kanaalkaas waxa weeye subscribe like waxa weeye inta loo badiyo aad baa marka intaasaan kala nahay afurka ka diyaar garoobeyna hadda marka waa salaam asxaabta ku xiran aad iyo aad kanaalkan waxa la leeyahay subscribe iyo comment aad iyo aad
soo dhaweyn doonaa Cabdixaafid waxa uu ka mid yahay ardayda wax ka barata waddanka Uganda gaar ahaan gobolka Mbali soo dhawo saaxiib galab wanaagsan afur wanaagsan Mbali waan joognaa meherada anaga dumaysan ka afreynaa rag waa badan yihiin Allahu musta'aan ka waran waddanka waxbarashadiisa ama gobolkan arday badan oo Soomaaliyeed baa jirto wax ka barata meeshaan wada wax ka barata xisabta joogta ardayda joogta qolada waxa joogta iyaguna mutaadacooda iska badan yihiin كل بس تعب وحضرنا والله ما نوصل دلوقتي مجد ودان بقى سجلنا عندنا وقتي واتوكي دمه واسكر ما يستنينا عاد ما حضر شيء ما له وقتي ما كنت جبنا عباده marka de kulay wax dhibaato ma qabno janaalka Cabdulla Faruq subhanahu wa ta'ala subscribe ku like hal siiyo subscribe ku hal siiyo hal soo boqdo waxaan la joogaa jaamac wuxuu ka mid yahay ardayda muddo dheer ku sugnaa gobolka Mbali oo la oran karo waa ardayda ugu horeysay waddankan TV in badan wax ka fahansan jaac soo dhawow waa dhawayaan gobolkan waa dhalinyarada Mbali caasimadda Soomaaliya Mbali waxaan joognaa caasimaddiisa Mbali meeshan sidii ardayda hore sheegtay waa meel loo soo aado waxbarashada ganacsatada way joogtaa laakiin nimadda gobolkan waa gobolka loo soo aado waxbarashada wuxuu sidoo kale leeyahay dhul badan oo dalxiis waxa ka mid ah Monte Elgon duurta la yiraahdo waa isku xirta Kenya iyo waddanka Uganda waa qaybta waqooyiga dhammaan asxaabta Cabdullaahi waan salaamaya sidoo kale dhammaan ummadda Soomaaliyeed assalaamu alaykum sidoo kale waxaan ku soo dhaweyn doonaa Cabdisalaam geeskaas u fadhiya war Cabdisalaam iyo waran ka waran gobolka Mbali warahmatullahi wabarakatuh salaam ya ummadda Soomaaliyeed meelkasta ay joogto waa dhownahay aad baan salaamaya halkan waxa joogta ardayda waxbarashada waa magaalada Mbali ee dalka Uganda insha Allah sidoo kale waxaan rajaynaynaa halkan waxa jooga wax badan yihiin jamaahirta ardaydu badan yihiin insha Allah waxaan rajaynaynaa ardayda waxbarashada way dadkan qalqaala ku jirnaa marna waxa sameeyna inaad tii goosano insha Allah aan ka soo hadalno saacada aan ka soo wacno insha Allah wax yar warkayga waa arki doontaa insha Allah wa salaamu alaykum